degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxa maanta si rasmi ah loo dhaariyay golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn ee dhawaan la soo doortay dhaarta kadibna waxay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceelaf Weyn iska dhex doorteen maayar iyo maayar ku xigeen waxna ku tartamayay jogooyinka maayarka iyo maayar ku xigeenka afar xildhibaan oo kamid ah golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn waxaana codka haldheerida ah ku guuleystay oo helay maayar Maxamed Aadan Digaale iyo maayar ku xigeen Maxamed Jaamac Liibaan Hindi oo markii labaad ku guuleystay jagada maayar ku xigeenka degmada Ceelaf Weyn ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Ceelaf Weyn Faysal Cabdullaahi Warsame Cuqaal waxgarad iyo waayeel waxaana yiraahdeen muddada dheer 5 sanadood dagaalka ku jirtay xaaladoodu ay adkaatay dhaqaalihii uu ka burburay kuwii soo qaadi lahaa waa inaan noqotaan kuwa magaalada nabadeeya kuwa mashaariic ka fuliya kuwa dadka isu soo dhaweeya ayaanu idinkula dardaarmaynaa inaan noqotaan tiim wada shaqaynaya oo reer Ceelaf Weyna waanu idin hambalyeynaa dhammaantiinba ilaah baanu waana idinku ducaynaynaa ilaah waxaanu idinku baryaynaa idinku guuleeyo idinna gilgilka qabsada aniga iyo kuwa kale tartamayaasha ahaaba codkayagii halkan lagu fadhiyaa xildhibaanadaas noo haya waanu ku hambalyeynaynaa uma ciil qabno ugu dudimayno way naga guuleysteen waanu ku barbaar taaganahay kuwa maanta qabsaday waa nasiib badayiin oo nabadii cagaha dhulka dhigatay ayay qabsadeen waxaanu leenahay ka midha dhaliya oo nabad dawladnimo dhasha xagga dawladda ka dhalata oo xagga shacabka ka dhalata oo dhammaan degmada Ceelaf Weyn daafeeda ka dhalata insha Allah anana way idinku ducaynayna maayarka iyo maayarka xigeenka cusub ee la doortay ee degmada Ceelaf Weyn waxay si wada jir ah ugu mahad celiyeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn ee iska soo dhex doortay si ballaaran ugu mahad celinaya mulka heer gobol iyo heer degmaba xildhibaanada degmada la soo doortay ee sidoo kale anagana na doortay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo shacab weynaha kale ee reer Ceelaf Weynba kulay waxaad moodaa maanta waan ugu daayarahay laakiin insha Allah uma karti yaraan doolo waxaan rajaynayaa biidmillaahi in ilaahay la qabto waxaanu ka shaqeyn doonaa si isku mid ah horumarka iyo nabadgelyada bulshada reer Ceelaf Weyn waxaan noqon doonaa kuwii degmadooda aan ka xoogsan ee u xoojiya ma noqon doono maanta laga bilaabo axsaab mana noqon doono xildhibaano reer soo doorteen ama mas'uuliyiin reer soo doorteen laakiin se waxaanu noqon doonaa mas'uuliyiin qaran waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin 5 iyo 6 baynu kala ahayn midun bay raacdaa caloosii waxaan leenahay waa mahadsantihiin kii noo codeeyay iyo ka noo codeynba waxaan maanta ballan aan u nahay maayir ku xigeenkii degmada baan u ahay xildhibaan Axmed Sablaale iyo xildhibaan Balaag oo ahaa labada mas'uul ee la tartamayay mas'uuliyiintaas la doortay ayaa iyaguna dhankooda hambalyeeyay annagoo tartamaynay aniga iyo saaxiibkay Maxamed Aadan oo aqlabiyadii codka aanu isla miisaanku xaggaaga uu janjeeraa xaqiisu uu janjeersamay aad baan u hambalyeynaya waana wada shaqeyn wacan iyo hambalyo anigu waxaan u tartamayay gudoomiye ku xigeen walaalkay Maxamed baan la tartamayay runtii wuxuu iska kooban darteed midka yara dhulucdayna dhex joogay sidii la dhuuda hadii xaqiisu u batay oo ugu hambalyeynaya gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay barasabka gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag oo ka soo qayb galay xafladaasi ku hadlaya magacii golihii hore deegaanka aad iyo aad ban maanta u hambalyeynaa u soo dhaweynaa golaha cusub halka lagu dhaariyay waxaan idinku gulaabinayaa qoladiina iminka golaha deegaanka hawshii boogadhaysta turxaan bixinta ma kala qaadashada isu soo dhaweynta heshiiska wixii dhiman maanta xildhibaanada waan u hambalyeynayaa 11ka maxaan ku dhahay xubnood ee degmada labada mas'uul waa u sii hambalyeynaya waan dhalinyaro ninka dhalinyartaana kulay dhiig cusub baa ku jira oo laba dhalinyaro dhiig cusub baa ku jira dhiigga cusubna in la shaqeeyo ayay u baahan yihiin waxay noogu horeeyaan oo hore noogu hadalayo waa nabadgelyadaas haddii nabadgelyo la hayo wax kasta buu ku hagaagaya nabadgelyada haddii la waayo de waxa kale horumarkeena ka sheegay in la gaari kari maayo Axmed Mursal Askari Star TV Ceelaf Weyn.